ka baxda adiga ma ku gasha dari ma ka baxda adiga ma ku gasha adiga ma ku geyda adiga talo ma ka go'da dari ma ka baxda adiga ma ku gasha dari ma ka baxda adiga ma ku gasha adiga ma ku geyda adiga talo ma ka go'da السلام عليكم مدن رئيس الوزراء محمد حسين رامل وأكو سلامي وأنا الفنان محمد معلو نور horta aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tahay shaqadii dhibka badneed oo ilaahay guulka ugu siiyey oo maanta dhiig aan daadanin dad walaalo ah adiga iyo tiimkaaga walaalow waad ku mahadsantihiin tan labaad walaal waxaan kaa codsanaa laba arrin ayaa na haysata haddaan nahay qowmiyadda banaadir tan koowaad dowladda waxayna siisay soomaali baabuur oo aan lahayn taarigo number dowladdii kasoo bilaab cabdi khaasin ilaa hadda baabuurkaasaan fuulnaa hadduu dad dilo number ma ku qorno meel loo raacdo male haddii la xado meel laga raadiyo male ko haddaan kuu jirciyo waad la socotaa dowladdeena waxay ku dhisan tahay 4.5 mar allaale markii la gaaro doorasho madaxweyne xildhibaanada kale ila xildhibaanadu waa isku mid xildhibaan waa xildhibaan xildhibaanada kale hete nin la arko gabalkiisa iyo madaxweynihiisa aa looga dhiibaa galmudug madaxweynehooda aa looga dhiibaayo odayaashooda way soo dhamaystaan dadka way keenaan haddii doodka timaado waxaa loo jawaabaa anaga ma aha odayaashiina iyo madaxweynihiina aa keeni gabal la arko ma isku diidan anaga waxaa la yidhi markii koowaad 7 ana la siiyey kursi oo xildhibaana markii koonfur galbeed la dhisayne 2 aan xaggana ka raacday waa 8 years waa dowladda xasan sheekh ilaa farmaajo ber loo soo dhaqa male waad la socotaa controolka wuxuu ka bilaabanayaa ex control way xagga ka ah waxaa iska leh koonfur galbeed kursigii marka iyo kursigii jaziira koonfur galbeedaa la geystay sharcigu wuxuu dhigaa dadka jaziira degan waa qabiil badan oona jiraan in ay ka helaan kuraasta koonfur galbeed 2 kursi meehaasoo ku maqan yahay 5 hadda taalne ceebta noogu weyn ama anagana haysato ama dowladda soomaaliyeed haysato ama dowladdaada haysato waxaa kamid ah waad la socotaa maanta gobol la arko puntland jubbaland hiirshabeelle ya galmudug koonfur galbeed xildhibaanadooda waa u dirtay waad siisay odayaashooda iyo madaxweyneyaalkooda ku wareejisay aad bu kulid nadiifaa tahay nadiif sax anaga 5 kursi aabe yaa odayka ah yaa odayka ah mii sheegi kartaa yaa loola xisaabtamaa haddii musuqmaasuqa dhaco haddii cadaalad dal dhacdo yaa loogu dacwoonaa intee lagu dacwoonaa mudane ra-iisul wasaaraha maxamed xuseen rooble fadlan aniga jaga ma rabi
beeshinaan ahay beeshaydana uma rabi waxaan kaa codsanaa hal nabar aa igu taagan aniga qoomiyadda banaadirna ku taagan oo cabsanayaan ilaahaan kugu dhaariyey shantan kursi oo banaadir yaa ka odi ah yaan kuloo xisaabtamayna ilaa odi banaadir ma jiro waxaan maqlaayey odi beesha shaanshiya ah oo hadda loo dhiibi ayaa sheeganayo dhaqan ahaanne ma dhigayso dhaqankeena banaadiriga waxa waaye asharaaf meelay joogdo ya in aan kow cid kala dhaqan karin asharaaf haddii la waayo waa lais yaqaanaa marka walaalkayo dadka fanaaniinta meel dheeray wax ka arkaan aniga aad iyo aad waxaan ugu farxay labadii shir ka dhacday dhuusa mareeb iyo shirarkii ka socday afasioni tendada iyo shirkii xalala ka socday markaan arkay nin anagana masalooyo laakiin dadka maangaabyada ah oo reer banaadiriga ah ma ogo waa guddoomiyaha gobolka banaadir waa madaxweyneheena asaana masalooya ahna duqda magaalada marka waxaan kaa codsanaa cadaalad 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 cadaaladdaasoo ah tan koowaad labadeena kursi marka iyo baydhaba kan la geeyay oo jaziira aan leen noo soo celi hadday runkaa tahay oo qof islaam ad tahay ilaahay ka cabsaayo kow tan labaad shantan soo hertay in labadaas noogu dhiib duqa magaalada muqdisho ah guddoomiyaha gobolka banaadir asaga ha maamulo 7 degmo ha siiyo waa xaq haddii la rabo cajaladdan dhammaan ummadda soomaaliyeed ninkii maqlo walaalkeeyo oo u dhow ra-iisul wasaaraha ama dowladda ha gaarsiiyo duqa magaalada waxaa noogu dhiibaa saaxiibkeyga john nuur cadde john haddaad cajaladdan u geeweysi duqii magaalada aakhiri adduunyo ma ku xafilin walaalow mudane rooble waxaan kaa codsanaa mayaan dhibaa soo socdaa dadaa 20 sano ku fadhiyaan kuraasta oo dadkoodan waxay u tari karin dhanna hadday u bilaabatay weligoos caqli ma u soo bixin marka dhib ma ka bixi karno dagaal sokeyne ma ka bixi karno wixii xamar ka dhacay waad ola socotaa shingaana wixii ka dhacay xabreena wixii ka dhacoyn waad ola socotaa walaalkeyga waxaan kaa codsanaa madaxweyne la arko gobolkiisoo maamushta hadduu xaq jiro annaga maanta odi waxaa noo ah guddoomiyaha gobolka banaadir ahne duqa magaalada shir la arko oo la fadhiistana asaa noo masala kuraastaan u dhiib buuqaa si loogu baxo 7 degma ha geeyo degmadaasaa la iska soo sharaxo laakiin haddaad arrintaas tallaabadaas wax ka qaba weysi mudane rooble dembiyaad naga gashay anoo masalahayo dadka waxgaradka reer banaadiriga ah oo aamusan oo ciil la aamusan anaga ma liiri dadka whatsappka oo baax ka dhahayo markaan madaxdeena sharafta aan laadeyno si toos akhyaarnimo ixtiraam asluubnimo aan ola hadalnaa madaxdeena anaga mudane rooble hadda ummadda soomaaliyeed way ku haweyn tahay ha noqonin cidla aan la mudan iyo tin iyo ceeb aan garan arrintan muqdisho waaye xaq waxaa u leh guddoomiyaha gobolka banaadir waxaana ku caddeynayaa cawada xamar wixii ka dhaco
degmada shingaani wixii ka dhaco ama degmada xableen wixii ka dhaco adigoo ra-iisul wasaaraa waxaad la xisaabtamaysaa guddoomiyaha gobolka iyo wasiirka arrimaha gudaha soo diiday bas guddoomiya degmada u tegay walaalow sharciga waa taqaanaa waa iga badisaa marka walaalow cumri dhamaaday ceeb lagu sagootiyo taariikhda a kuu gasho ninka mideeyey soomaali labadaas kursi noo soo qaad shantan ku dar duqa magaalada faraha ka saar 18 degmo waa kala yaqaanaa cumar finish asaa mas-uulka ah cidoo u magacaabayo wuu yaqaanaa hadday soo baxdane kuraasti la sheegi jiray aqalka sare way noo fiican tahay qaarna degmooyinka xildhibaan intaa ka siiyo qaarna aqalka sare 18 degmo la sheegayo marka inaad anaga waxaa la maqloonaa banaadir oo meel loo racleen wacal maa nahay oday ma qabno hooya ma qabno meel noola soo racna ma qabno marka meel ark waxaa ordooyaan caruur yaryar sheekdeen waxay dhaafeen walahi whatsapp makaa tuurino makaa yeelino marka walaalow adigana ilaahay garabkaagaa galo codskan waxaa rabaa mudane maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaarehayga inaad iyaa ka soo jawaabtid waana ogahay shaqadaas inay kugu qaadanin one day waxaa ku filan baydhabo oo warqad u qortid oo tiraahdi labadii kursay oo gobolka banaadir lahay fiiri gobolka banaadir mudane ra-iisul wasaare waa gobol weyn iyo maxaa la dhihi jiri reer xamar waa qoys mas-uul ma naqi karo reer xamar reer banaadir waa qoys kursigan sharciyan wuxuu dhigayaa dastuurka ku dhaqaa diradid ya in guddoomiyaha gobolka banaadir oo shirarka nagu maselo inta labada kursi loo dhiibo ou asaga maamulo ou la shiro beelaha xamar degaan oo dhan inuu la shiro haddowra ha sameeyo hadhaho almeeno maadaama 7 uu yahay banaadiriga 4 sii ama 3 sii 4 xaggan sii maadaama baarlamaanka aan loogu jirin waa ra'yi fiican mudane rooblo waxaan kaa codsanaa fadlan noo sheeg 5 kursi yaa guddoomiye u ah yaa madaxweyne u ah oo maamulaya makaa rabo nin asaga maamulanayo oo caruurtiisa ama qabiilkiisa u rabo waxaan rabaa hadda gooray goor tahay heer xamar wac waxaad leedahay soo fadhiista horteyda ku doorta nin caaqil ah oo mas-uul ah oo oday ah oona taariikh leh caruurtaan mean baax kadhayso yay ku waarin ummaddan yay isku dirin rooble anigu wax weynaan ka digooyaa walaalow dadkaan reer banaadir ishooda yay ku qabanin hadda dad badan ayaa ishaas haysa adigana liiska ha gelin waa kaaga digaa walaalow noo sheeg 5 kursi hadday soo naqanayaan 5 soo majeeste oo maalintii ka bilaabatay cartan ilaa hadda halle ku cusub oona ku cusbeen oo laakiin qabiilkiisa u fadhiyo waa jugjug meehada joog walaalkayow waad fiican tahay taariikh fiicanna way kuu socotaa waan kula soconaa wax kasta aad sameynaysid haddaan ahay milkiilaha macluumiidii
waan aruurinoyaa oo fiican kulli safaradaada kulli waan ula socdaa marka walaalkayo codsigaasaan kuu soo jeediyey jawaabteedana waa kaa sugaa adigana iyo dadka garabkaaga joogo tiimkaaga ilaahay ha u fududeeyo doorashadan leh oo soo socoto ilaahay nabad ha noogu dhameeyo ilaahayna ha noogu dhigo inay ku dhalato dowlad kheer ummadda soomaaliya u wado mudane ra-iisul wasaaraha maxamed xuseen rooble barasho wanaagsan waana ku salaamay warkaygana meeha noogu baxay wabilaahi towfiiq garima ka baxda adiga ma ku gashaa garima ka baxda adiga ma ku gashaa adiga ma ku geydaa adiga taluma ka godaa